الحمد لله رب العالمين. ساعات شيكتين ما أنت واحد ودي أرجلوه إن دور الشويك ولا ما دور الشو فيحاول بديه مد وحسبها ترتب كتيرة وعلى سكرني تيم يحتوين وشوكته ما أنت دل كينو عدو بدنه وليه مرحلة أذن ومرية قبل كان إن دقنا هنا تجعل بدن باقي صعدة ورجع حوا أركتها يمن وأركتها أديو حدودها إني آدي منك ugu badan yihiin dhibaatooyinka iyo falqaralada saadalada waxaan u baahanahay horta in loo midoobo midnimada qaranka difaaca qaranka iyo doorashooyin nabad doorashada waxaan ka rabnaa inay qaranka uu soo kordhiso in la helo dadka oo isku jeclaada aan isku dhicin haddii ku culowno doorashada oo nin walba dantiisa dhan waa cararo oo siyaalo badan oo aan haysan loo dadka wax looga dhaadhiciyo ee daawax yeelanaya cid dadka waaninaysa dadka ayaa waaniya dad badan baa umada waaniya culimada ugu horeysa haday culimada qaar kood siyaasadda galaan ama ay horsadaan dadka siyaasad ee dhibaato jiraysa waxa ku xiga madax dhaqameedka oo dadku aad u dhageystaan iyagana waxa laga rabaa inay dadka mideeyaan oo tusaan inay Soomaaliland qoys qurati oo wax la kala qaybqaybiya aan ahayn yaa ku xiga dadka halabuur kale ama aftahamada loo yaqaan ilaahay dadka uu mid wax u badiyay waxa laga rabaa inay waanadooda iyo aftahamada ilaahay si gabay heesta noqoto inay dadka wax khayr leh oo soo jiida keenaan aanay keenin wax kale yari taas waa waanagu maanta doorashada qabanayo ciidamada waxa weeye waxa tihiin مسؤولية قوي ما أنت إيه سومالك عملي كترته لكن ما أنت دورشة إذن كي يكمش هذا لك مسؤول إذا كان شغال من الحلول دكتور رئيس والله لا يقدر دورشة لقى أمر قاضنا إياه هي كان اللي في الليل وحرش عين نوتر ماما لبدينا قلا حلو وين بعيد سعران وحاولت دورشة أقول لك دورشة وحالي وحياة شغال قليل ما كان له تدور قفل دورته ما dadka shaqada loo dhiibay ee gobolada loo diray ee goobaha loo diray hadii ay iyagu inta ay qaldabaan waxaan uga soo dhawaato weerarada ruuxa nin waliba halkii loo diray wixii loo dhaariyay sharcigu sheegayo ilaahayna ku ogeeyo waa inuu qabto marka ninkaas hawsha loo diray ay ka arkaan dadku daacad iyaga ku aaminay dadku abaalka waa gudan qofka xaqiisa u sheega marka cilmada wax laga rabaa hawsha uu wado gudiga doorashadu ina ku dul alaasaan isla markaana ahaysaan hawlihiina caadiga ahaa oo iyaguna maanta ka sii culus oo difaaca dalka iyo amniga gudaha way sii bilaabmeen hawshoodii labadaas loo taariikh ilaahay idinku waxa ka rajaynayaa intaba inaynu si khayr loo gudan doono idina dardaari maayo malaakan waxaan dhaawacayn uu ku yiri iman qaranka كنت سنة رجع أول ربع سوى شقين وكيري كوا راح ديها قاتي وصوتها برته أنت بدنا واحد باهين إن كور هيسي هوش عيدمه أما عيد ما علي أما ويقول واهين أما وحيس قبينه يجاتش علاوة كلك تردار المريض الأول الحسوسية لماذا حولنا قلص أيا إنه تاجن وأنا كسرنا هنا في اللسان markaas waxaan dardaaran gaar ah iyagu sii jeedinayaa in ay aad iyo aad uga taxadiraan dadka shirka wada shaqeynaya in dulqaad badan muujiya qolada booliisku iyagu waa laba ka dhaxeeyo dhanna waa ka ciidan dariskiisa dhinacana shicibka u dhex jira waa shicib si shicib ah weey marka waa argamiir maanta iyana noqoto tu wax tarto oo aad iyo aad uga faa'iideysan midnimada iyo nabadda qaranka ciidamada waxa loo sameeyay waa nabadgelyo meel walba nin dambiilaha jooga nin wax duminaya jooga waxa laga argixan ma dagaalka iyo nabadda raaxada iyo dhibtu nolosha ka mid Allah iska rab socdo midna ma dhamaado midna ma antii adaa baritaa soo noqda haday wax dhacaana waanu hayna dad waay araga oo garanaya si loo handal gareeyo oo inaba yaray askarta ana aad iyo aad ugu sheega argagaxna aan imanin wax ka taabci kara taana in loo maskaxan loo diyaar garoobo
تلا laga lahaadaan leeyahay umadiinu aad bay u kalsoontay ciidamadu aad baa ciidamada loo qadariyaa dhibaatooyina la ogi gaawiciina la ogi hawsha xariyaha bay ku jirtaa baa la ogi maanta tii bay kamid tahay xoogaal baan oo ahay iyada shaqeeyaan dadkoodu kalsooy maanta daarmayno laakiin waxaan isoo xusinay oo soo sharaxay hawshu intay laag tahay iyo soo qabanayo tartamayaasha siyaasadda ee daneeya ama ha sharaxnaado ama ha taageero ama hada ku jaraadka analysis faalada raadiya qora waxa laga rabaa laga bilaabo wiiga doorashada bilaabayso dadka wax dhiirigeliya oo walaaleeya oo mideeyo in la wada mooyaane inaan wax fadqalay xagaa dadka maskaxdooda laga abuurin aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa soo aan u diyaar garowdeen ilaahay idinka waa ku guuleysanaynaa doorashaduna tu khayr leh oo Soomaaliya hormarteen ku dhamaan doonta saas ilaahay ka rajayna waan mahadsantihiin